السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة الشيخ محمود شيخ حسن أبو طلحة حفظه الله ورعاه. برنامج آدي آد قروح بدن آدي آدنا وشرف بدن أيان جعلنا هاي إلى كل سنة برنامج كاسي وحوية جبر عانا وصوماليات وفنانات أيام مانتج وأنستي إلى جوجسوسي وضد هسها تفاح علي دبد وأيكم قاعد نرتهي تفاح علي دبد وجبر هستا وجبر صوماليات وجبر آد أدو تقانن heeso badan ayay leedahay in ka badan 40 heesood ayay leedahay tufaax waxay ii sheegtay inay muddo ku soo jirto fanka waxay ii sheegtay inay heeso badan qaaday waxay ii sheegtay in ay go'aansatay in ay ka tanaasusho inay haysto Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh walaalayaal qolkan sharafta badan ee barakeysan waxa hore go'aan u gaaray inay joojiyaan inay heesaan oo dib uga fadhiistay heesihii ay wadi jireen fanaaniin runtii maskaxda Soomaaliyeed ku weyn oo aad iyo aad u yaqaanaan oo ay kamid tahay Hiba Nuura xafidahullahu wa ra'ah Allah subhanahu wa ta'ala noo xafido Hiba Nuura oo taqaanaan hooyo Soomaaliyeed oo sharaf leh Fartuun Umar Aweys Khamiis Abdalla Mabuusa oo taqaanaan nin runtii meel sare ka gaaray heesaha oo casriyay heesihii iyo suugaantii Soomaalida go'aan ayuu ka gaaray inuu heeso hadeertan waa nin sheekh ah oo Allah subhanahu wa ta'ala u toobad keenay Faaduma Halda ayaa kamid ah Yawmul Khayr dadka daartan barakeysan ee 114 u xaqiijiyay dadaal ay culimo badan oo Soomaaliyeed oo hormuud ka yahay ama Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan Abu Talha maaragtay dadaal uu sameeyay ay fanaaniintaasi ku joojiyeen hadda maanta waxa miiska noo saaran tufaax cali dubad tufaax waxay kamid tahay fanaaniinta aan hore u sheegay tufaax waxay ka heesi jirtay aroosyada waxay ka heesi jirtay maamul goboleedyada xafladaha aroosyada marka la isfurayo munkar iyo balaayo dhan adigu marka hees waad fahmi kartaa waxa ay soo galayso iyo xaalku siduu noqonayo iyo waa wax runtii aan u baahnayn inaan sharaxaad ka bixiyo tufaax cali dubad ma ku jirtaa waan ku jiraa waan ku maqlayaa tufaax aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maantay halkan ku kulanno daartan barakeysan ee 114 tufaax waxay caan ku tahay tufaax darajo magaca la yiraahdo runtii waa gabar Soomaaliyeed waxayna go'aansatay inay dib uga xakato inay haysto marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa halkan waxa ku jira culimo aad u fara badan dadku qof ka badan ayaa ku jira oo muslim ah muwaxid ah diinta islaamka qaybaheeda kala duwan ayaa qolkan lagu bartaa faniyada kala duwan oo dhan hadda waxaan ka hadlaynay sidaad dhageysanaysay sida qoysaska Soomaaliyeed loo midayn lahaa ama ay maaragtay isu kaashan lahaayeen jacaylkooda iyo wanaagoodana ay u horumarin lahaayeen fanku waa ka qayb marka la waafajiyo shariicada islaamka tufaax darajo waa ku soo dhaweynayaa hal su'aal ayaan jecelahay marka ugu horeeya inaan ku weydiiyo oo ah go'aankan aad gaartay ee ah inaad joojisay heesaha muxuu ku yimid maxaa kugu dhaliyay aad iyo aad baad umahadsan tahay aad iyo aadna waan wada salaamaya salaamka islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu culimada ku jirta iyo muslimiinta walaalaha ee dhegeysanaya waana ku faraxsanahay in badan baan barnaamijkan ku fadhinaa in badan baanan jeclaan jiray niyadda ku hayay Allah subxaana watacaala inuu ku muuno qadarin inaan ka mid noqdo oo sheekha aan jeclaa barnaamijkiisana aan ku fadhin allaha xafido uu isoo wacay ina soo fiiriyey sababna waa ahay gabadh walaashaya khayr allaha siiyo warshan sheekh maxamuud oo ku magac dheer sayro walaalo ilaah baa qadaray sababa inaan ka baxo calaamado lay tusay ilaah subxaana watacaala tusayna way ii sababtay runtii fanka lugna waan kula jiray lugna kulama aanan jirin ma oran karo يعني وان شعلا هذا sometimes يعني هدوء يراها وحن آمن سنان شري وحن في الجرين إن كذا حد مكروه كلية هاسو وما نجلين همتي وما نجلين إن عن مضع يشو وما نجلين إن عن خان نقدر شفت تفيدين ذن شعلا إن كو أمانة يعني سيابك لا نوع أمانة كرا عن سيدها سنبا كو أمانة كرا أيانا قلي يسيدها ساوى دنيا صوت يبوك اللفتي inaan ka haran nabajiso arrinaa waa lay tusay oo sida culimaduna ay sheegtay anigana aan aaminay imika alxamdulilah aan dareemo inaan ahay qof ilaahay jecel iyo soona habeenayo jidkaasina u khaldanaa mar walbaana ogaa shanta waqtinaan tukada alxamdulilah waxaa lay tusay
marmarka qaar aan soconayo jidkaanoo maraya hada dhawaaqaan maqlo waa dhimanaysaa tufaax geeridu waa xaq waana la dhimanayaa waqti ay tahayna ilaahay oo keliya ayaa garanaya laakiin marka aan hadalkaa maqlo naftu way baqi jirtay sababtaan u baqayo waxay ahayd maxaad shaqaysatay kaa horeeya inta heesoodayaad qaadoodan ka toobad keenin ayaa marwadalayadeeda kusoo dhici jirtay waan qarsaday arrintaa xaafadda asxaabta markaan habeenka kusoo caweeyo kale aan soo noqdo aan gurigeyda soo aadayo ha tegin gurigii markaa dhimanaysa halkan dhaafi maysid dhawaaqa waan maqlayaa ilmo anigu aanan xukumi karin baa iga socon jirtay jirka igariiro waan wada qaboobayay xidin jirkayga kamidoo qaadi kariya ma jirin alxamdulilah sidii waxay dhacdo tani may noqon waayo ilaah baa qadaray inaan ka toobad keeno oo jid tusayay waqti aan dhiman dhowrta ilaah baa garan way ka timi tii wadama way kasoo noqotay inantan warsan baan sheegan kuri warsan jirka xanuuna wadnaha gariira kurdama helo waan gubtaa jirkoo dhan baa xanuunaya mar walba way waanin jirtay mar walba waxay isku diri jirtay inay xabisyada iisoo dirto mar walba waxay tusi jirtay inuu jidkaasi yani uuna saxsanayn waa istaagistee deedna maalmaa kamid aan kusaasaan dareemaya waxay tiri ilaah baa ku jecel isku day mar walba cabsidaa la tufaax inaad badiso sidoo kale haddana inan kale oo iyaduna ibnadiina khayr allaha siiyo janna ku joogta oo nimaclayaadan wacay waan u sheegay waxaan ku nin mar walba geeri baa lay tusaya ama qofaan jeclaa lagu odhanayo wuu dhimanayo oo arkay dib uma arkaysid ama anaa lagu dhaayay ka dhimanaysa waxay ku tiri waa culimada la xidhin geeridana arkaysiyo waxaad dareemayso hadda yalsan oo ilaahay u toobad keen tufaaxi waaba laga yaaba inay taadi noqoto lagu tusayo way kasoo waaday guriga markaan imaado asxaabta markaan la joogo waxba ma arko waan fasaa-un sida markaa daabka laygu soo garaaca ama hablii hadlaan oo kale ama laysoo galo gurigiis waan qayliyaa sidii qof yani dilayo igu noqdaa qofkii gurigayga markaan imaado waxa jaajar guriga yaala telefoonka jaajarka igu jiraa mas buu noqdaa cagaar iyo cadaan kalaro badan oo hadlayaba oo iguna waan ku dilayaa wuxuunbaa iguna waan ku dilayaa fiishka ka yar sariirta madaxiisa la dhigtay habeenkii oo shito markaan demiyo mas buu isu bedelaa ma hurdo ma odhan karo waan hurdaa waan soo jeedaa weli ma gamcin qofku markuu hurdo waaba riyaad odhanaysaa anoo arkayabay mas noqdaan mas buu igu noqdaa cunaha lay qabtaa naqaskaa laygu dejiyaa awoodoo dhan baa iga tagtaa waan awoodi waaya deedna intaan soo saro fadhiisto ayaa xitaa inaan neefsado ama aan shahaatimo marka qaar aan awoodi waayo meelhiila laygeliyaa oo dabaq dheer oo hoos loo socdo dabaq jarjar loo kala jiro meel hoos loo socdo jarjarna male dhul maaha aan soconayo waa saa god aan saa u fooraro arrintii waan adkeysan waayo kadib baan usoo bandhigay culimooyinka iyo dadka diinka ku xeel dheer markiiba laygu yiri ilaah baa ku jecel waxaanad ku jirto ka bax waa wax kale maaha kadibna go-aanun baan qaatay wax ka yar 12 daqiiqo ayaan go-aan ku gaadhay inaan ilaahay u toobad keeno waayo ilaahay wax badan buu tusay maalinta caadigaa markay tahay qof shoogsan oo dadkaas soconayoo dhan waxay yihiin dad kale jirkaygo dhan waxaad moodaa biyo in lagu shubay oo aan go-aanka aad gaarta muxuu yahay tufaax go-aankaan gaadhay alxamdulilah waan gaadhay go-aankii aan gaadhay wuxuu ahaa inaan gebi iila joojiyo dadkana aan ka codsaday inaan dib ii dhegeysanin maalinkii aan gaadhay inaan go-aan aan joojiyo oo ah axaddaa beriya axaddeedii ilaa maanta waxaan qur-aan ahayn gurigeyda ma ka baxo qur-aan baan ku baxaa dhegeystaa cabsidii iyo culayskii allaha raxmaanka wuu iga dulqaaday salaadina waan tukan jiray sunayaashaan ku daray akhriska qur-aankaan ku daray alxamdulilah rabbilcaalamiin wax hees sheegataa gurigeyda ma taalo saacadda ama cd yaala waxaan 5 sano ku dhex jiray mar qur-aan ka dhex baxay alxamdulilah rabbilcaalamiin naxariis allaan dareemaya saaxiibo badan ayaa mihnadan kugu bartay oo hore aad saaxiib ugu ahaydeen arooshada kaasoo wici jiray iyo xafladaha ama showga ama bandhig faneedyada marka la dhigayo maxaad ku qancinaysaa dadka iyaga ah horta ilaahay subxaana watacaala keliya baa iga mudan inaan qanciyo ama aan raalli geliyo igama mudno qof bilaadan inaan raalli geliyo laakiin waanu soo wada shaqaynay waana jid yani ilaahay subxaana watacaala uu raalli ka ahayn iyo ummadiisuba inta muslimka ah waan u ducaynaya inuu ilaahay maalmaha kamida iyo kana saasoo kale uga nageegeeyo insha allah qofkana lama midabta kooro ama lama eriyo anigaba dee waan lahaa saaxiibbaan lahaa ay warsan kamid tahay oo maanta heerkan la soo gaadhay oo shiika maan barteen haddaan iyadu bari ahayn
anigana waxaa la noqonayaa asxaab baan la ahaanaya ku waaraysa dariiqa toosan oon ku daydaan maalin maalmaha kamida waayo qofku ilaahay jecel yahay unbaa habeysma hadaayadana walaale insha allah waan rajeynaya tufaax cali dubad asxaab badan ayaad haysataa 700 qofood ayaa hadda ku dhageysanaysa kuwa badanna way kusii dhageysan doonaan halkan shariicada islaamka sidaan kuu sheegay qiimaheeda kala duwan ayaa laga bartaa sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxana waad haysataa contactigiisa waad la xiriiri doontaa insha allahu biidnillahi kariim sheekh maxamuud saaxib alfadiila falyatafadal mashkuuran wamaajuura tufaax igu jir khadka sheekh maxaa aad arrintan ka leedahay alxamdulilah horta tufaax arrinteeda muddo sanad ka hore isoo gaadhay run ahaantii ayadana way og tahay laakiin jiitan baa dhacay walaasha waxa isoo gaadhsiisay warsan khayr allaha siiyo laakiin wax walba wakti buu leeyahay arrintan waxaan rabaa inaan ka dhaho hadda kalimaadka gabadhu sheegaysa waan qorayay waad dhiman doontaa ku garanayo biidnillahi tabaaraka wa tacaala iimaanka waxaad ogaataan horeyna waan u sheegay qodobkan ummaddan Soomaaliyeed mahma uu qofku xataa uu waxyaalo galgalo qalbigiisa sokor baa fadhida iimaan baa fadhiya wax dhaqaajiye bas u baahan yahay gabadhan iimaankii baa dhaqaajiyey qadarkii baa dhaqaajiyey wanaag buu ilaahay la doonay marka su-aasha cajaa'ibka ay soo jiidatay waxaa weeye oo haddaad dhimato geeridu waa xaqe maxaa kaa horeeya horta qodobkaa aad iyo aad buu runta ii soo jiitay waana qodob cajiib ah weeye arrintan waxaan doonayaa inaan dhaho horta gabadha ilaahay baa jeclaaday ilaahay baa doortay waxaan horta tahaniyad u dirayaa ayada oo aan leeyahay horta hanii'an laki horta boogaadin iyo maxaa la yidhaahdaa tahaniyadii baan horta kuu diraya waxaa kaloon hawada tahniyad u dirayaa aabbaheeda cali dubad oo hadda mar dhow aan wada hadlaynay ayada yay tiri aabbaa ii soo galay oo aad iigu faraxsanaa arrintan ayada waxaan tahniyad u dirayaa weliba inay gaadho aan jeclahay maxaa la yidhahdaa cali dubad oon leeyahay ilaahay xalaal baad ku dhashay maantana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa kaaga soo celiyey wax aadan indhahaagu jeclayn oo markaa ay gabadhaadi ku jirtay waayo qof walba ilmihiisa waa jecel qodobka saddexaad waxaan u dirayaa tahaniyad zawjkeeda iyo zaygeeda jamaal ciise oo run ahaantii ii sheegtay inay aad u qadariso kow ay ii sheegtay inuu aad u necbaa waxan ay ku jirto waxaan leeyahay marka maanta way ka tanasushay wayna ka baxday biidni illaahi inaan telefoon kula hadlana way iga go-an tahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala oon si codkayga anigoo wakiilka ah walaalaha wowanfor iyo inta muslimiinta khayrka jecel oo dhanba inaan jamaal ciise aan tahniyadan iyo khayrkan la qaybsado oo maxaa la yidhahdaa ilmihiisa iyo zawjadiisaba tufaax oo zawjada iyo maxaa la yidhahdaa ilmaha gabadha baan filaya inay tahay iyo jamaal intaba waxaan rabaa inaan baraarujiyo oo isoo jiidatay runtii su-aasha uu wariyahayaga weydiiyey idaa waqaca gabadha oo uu yidhi asxaab badan baad lahayd ama aad leedahay maxaad ku dhihi doontaa waxay tiri cajaa'ib waxaa ah inaan alle raaligeliyaa muhiimi ah haadihi alkalima waa kelimadii imaamu shaafici irdaa'u nnaasi gaayatun laa tudrak bini aadam in la raaligeliyaa waa waxaan la gaari karin laakiin qofku inuu rabbi raaligeliyaa runtii labada kelime cajaa'ibka ah ilaahay marba hadduu alla gabadhaa waxay leedahay hadduu alla raalli iga yahay cid kale dan kama lihi waxaan baraarujinayaa dhowr qodob koobaad tufaax waxay ahayd gabadh muslimada weli haddana waa gabadh muslimada dad baa waxay khalad u tarjumeen xataa gabdhihii hore ee heesaha ka tanasulay waxay khalad u tarjumeen dadka haddaa la islaaminayaa ilaahay ha laga xishoodo ilaahayna ha laga boqo cid aaminsan cidda heesaysa inay gaal tahay anigu ma ogi waan ognahay inay muslimiin yihiin qofka muslimkaa isaga oo muslima ayuu zina ku dhici karaa heesi karaa ribo cuni karaa qof dili karaa agoon xooleed cuni karaa shirki waxaan ahayn ilaa inuu xalaal ahayn
معتقد أهل السنة والجماعة كبائر قفل ويسين كرو إلا خوارجت إيو معتزلة إيو دادك خرخبا أي دادك كوغاليسية معاصدة تفاح قبر مسلمة دي هوري أهي حدنا وقبر مسلمة إيمان كيدو زيادة والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية إيمان كنا وحكو زيادة عبادة وحونا هوس أقول دعا معصية أي هوس أقول دعا ورتقضب كإنا برارتي واندونيا قضب كاللبات أصحاب بدن با وير خوص وقادي دون ولو تشويشين دونا وحالو ليه دونا قبل التوحيد كاللو قفتي وحيالا بدن با لو ليه دونا صبر إيا دلقات با لغا باهي وحال ليدهي أنا شلي دورتي ما أنتنا أنا دورتي ربي بان هداية إسيي سبحانه وتعالى ميتك لو حان لهي عيد كستو قبلنا قرانيسا أما أن قرانينين خيرك أغو كالمية dadka waxa weeye muslimiinta khayrka ayay isku kaalmayaan waxaan ku soo duuduubayaa suusa warku iga dheeraanin tahaniyada oo tufaax tahaniyad cali dubad tahaniyad jamaal ciise iyo qaraabadeeda iyo ehelkeeda iyo warsan runtii oo dawrka ugu cadaa'ilka badan ka qaadatay ilaahay waxaan ka bariyaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa ilaahiga cirka haya tiiran la'aan إلهي عرك أبوري إلهي أبوري إلهي wax walba ay gacantiisa ku jirto biyadihi kullu shay إلهي asagu aan xayiga ah ee baaqiga ah ee dadku makhluuqaadka dhan way dhiman Allah baaqiga ah Allah in xariistiisu waasica tahay Allah jannada iyo naarta abuurtay Allah jannada abuurtay Allah arshiga weyn abuuray Allah subhanahu wa ta'ala la caabudo Allah loo sujuudo Allah loo toobad keeno asaga Allah nuqtada iyo candhuufta iyo shahwada naga abuuray Allah subhanahu jalla wa ala cadamadiisa iyo weynankiisu wax la barbar dhigi kara uusan jira Allah makhluuqaadkiisa ka duwan ee aan makhluuqaadkiisa u ekayn laysa kamithli shay Allah waxaan weydiisanayaa saacadan dambe ee musaafirka ahay ee waliba lillahi wa fillahi ahsabu saasan ilaahi ka rajeynaya ikhlaase inuu maxaa la yiraahdaa iikan aan dacwo u soo baxay inaan dad muslimiina oo Soomaaliyeed oo luqadan ku hadlaya garanaya inaan maanta wax gaarsiiyo ilaaha waxaan gacmaha ugu taaganayaa oo ugu tadarrucaya oo aan ilaahay ka rajeynaya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanaya oo adoonnimadayda u muujinaya ilaahay inuu tufaax dambigeeda dhaafo ilaahay dambigeeda ha dhaafo ilaahay dambigeeda ha dhaafo ilaahay ha ka tirtiro ilaahay wixii hore oo dhan ha ka tirtiro ilaahay caabidad ha ka dhigo ilaahay saalixad ha ka dhigo mid diinta anfacda ilaahay ha ka dhigo mid diinteeda anfacda ilaahay ha ka dhigo mid dalkeeda anfacda ilaahay ha ka dhigo khayr wanaagsan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dhigo tawbada ilaahay ha ku dilo ilaahu tawbada ku dil ilaahay wadadan ay qaaday ay ku go'aansatay adiga inay kaliga ku raali geliso waxaad rabto ee amartay inay samaysto waxaad u diidayna inay ka hadho ilaahay dambigeeda dhaaf ilaahay samada ka aqbal ilaahu malaa'iktaada u soo dir ilaahu carabkeeda quraanka u dhib yaree ilaahu qalbigeeda quraanka ku sharax ilaahu qalbigeeda quraanka ku sharax ilaahu codki macaana ee aad u hibaysay mid adiga lagugu xuso oo lagugu amaano ilaahu ka dhig carabkii aad adigu siisay iyo codki aad siisay ee quruxda badnaa شيطانك وتسل لحسي مثل لغو أمان عابد ربي وكدك مد كتاب قرآن كاغا لغو أقري ربي وكدك إلهي وحد كدكته سبب أوغدكته إلي إن بدن قعم هذا أي كسو هنونان أو أي حمانته أي كغهران داعية إلى الله إله اللجري إله قرب كذا نقو إله توفيق وافج إله توفيق وافج إله توفيق وافج إله عرب كذا حق كأديه إله حبنا هذا حق كتوسي إله قلبي هذا النور قلي إله هرت هذا النور لك إله ملكت هذا النور لك إله بدح هذا النور لك إله قلاش هذا النور لك إله شرك هذا عذابك إلهي إله توفيق وافجي إله توفيق وافجي أولاد عافمات قبته إلهي وصيء وكو أرزق وأولاد دين وأذيبته إله كو أرزق إلهي وحن كبر إياه سبحانه وتعالى إنه قبر ناس والدعاء وأقبله إلهي وحن كبر إياه إنه آبه الدعاء وأقبله آبه علي الدبد إنه الدعاء الدعاء هي فرحة وكفر حي هي فرحة وجمال كفر حي عيسى
iyo farxadda aan annagu ku farxnay iyo farxadda ay muslimiintu ku farxeen inta maqasha iyo inta maqli doonta ilaahu u aqbal ilaahu waxaan kaa baryaa cid alla ciddii caasiyina inuu soo hanuuniyo ilaahu cusaada muslimiinta soo hanuuni ilaahayu cusaada muslimiinta soo hanuuni ilaahu dhallinyarada xaqa ku toosi ilaahayu odayaasha xaqa ku toosi ilaahu culummada xaqa ku toosi ilaahu dumarka xaqa ku toosi ilaahu hidaaye iyo hanuunna sii ilaahu cadaabkaaga ooma dulqaadan karno ilaahu toobada naga aqbal oo ilaahu baryada naga aqbal oo ilaahu sujuudda naga aqbal oo ilaahu rukuucda naga aqbal oo ilaahu baryadaada naga aqbal rabbiyow annaga addoomaan kuu nahay adigaa ilaahayna abuurtay ah ilaahayow tawfiiqdana waafaji oo towbadda naga aqbal as'alu allaha tabaaraka wa tacaala biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ilaahay waxaan ka baryaa inuu tufaax darajo sare uu geeyo nebi maxamedna uu la xidhiidhiyo maalinta qiyaamo maxaa yeelay nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man taraka shay-an lilaah qofka shay ilaahay dartii ooga taga waxaan ognahay qof ku cadaadiyey ma jiro waxaan ognahay qof ku handaday ma jiro waxaan ognahay qof wax ku yeelay ma jiro lilaahi bay ooga tagtay ilaahay dartii bay ooga tagtay magac bay ku lahayd intaasoo kumanaana baa dhegaysanaysa masrax markay istaagto codkeeda la dhegaysanhayey haddanana lilaahi bay oga tagtay ilaahaygayow aday ku raali gelisay adiga dartaabay oga tagtay ilaahu adig dartaabay oga tagtay ilaahu inay qur'aanka kugu aqrido carab ilaahu dib ha u celinin ilaahu dib ha u celinin ilaahu shayaadiinta ka ilaali ilaahu xirsi u noqo ilaahu xijaab u noqo ilaahu xisn u noqo ilaahu derbi u noqo ilaahu derbi u noqo ilaahu xumaanta ka ilaali ilaahu ducada iga aqbal ilaahu waan ku baryay ducada iga aqbal ilaahu gacantan ku taagtay ducada iga aqbal ilaahu musxafir ducada iga aqbal ilaahu dacwa subx ilaahu ducada iga aqbal وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله شغل الفاضل الله سبحانه وتعالى أنت تقول عيسى كذا بقى الله كشيء الله سبحانه وتعالى دنبك هدافه تفاح درجة واسدة دران كاغو محد كإلين هذا هذا الشيء وهنتي إلهي درتيس وأويي سيدي هاي دران كاغو تفاح. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله إلهي حفظ الشيخ والله الدران كاغو لما تشوفوا ذكريا الحمد لله رب العالمين فرحة قبل اللي شرته عادي أبدا فرحتني ولا wax iga maqan habeenka caawa ma garanayo ilaahay subxaana wa tacaala ha xafido sheekha jannada ugu sarreysa allaha geliyo maanta maxaad go-aansanaysaa hadda kadib walaalo go-aankii aan go-aansaday ayaan go-aansanayaa oo ah walaalo in aan inta aan noolay hadduu rabbi idmo dariiqa saxa ah iyo qur-aanka alle barashadiisa aanu istaago maskaxdii aan habeenka qura shanta soo ku xafidi jiray inaan qur-aanka alle ku xafido ayaan diyaar u ah insha allah biidnillah dad kala duwan oo halkan uga mahadnaqayo ayaa daafaha adduunka iga soo wacay 5,000 oo qof oo igu jira iyo 10,000 followers oo igu jira ayaa maalintan ahaa live-ka 7 daqiiqo wax ka yar adduunka daafihiisa iga soo wada wacay rag iyo dumarba leh oo wadaagaa oo qof waliba taagan dar alla in igu baro qur-aanka hor ilaahay inay igu wada baraan kuwa waddanka la nool iyo kuwa daafaha adduunka ku noolba online igu baraan alxamdulilah waa jaanisaan haysto waana ka faa'iidaysanayaa nimco iga maqano wallahi maana jirin culayskii iyo ciirigii iyo noqoto biidni illaahi tacaala hiba nuura waxaan filayaa intaada dhalanaya heesi jirtay maqaamka iyo sharafta ay ka gaartana waad og tahay bulshada soomaaliyeed ku lahayd halkan ayay noogu xaqiijisay inaysan dib dambe ugu laaban doonin fanka wayna ka dhabaysay fartuun cumar waa taqaanaa waa gabar yar oo da-yar iyaduna go-aanka ayay gaartay aweys cabdalla khamiis mabuusa waad garanaysaa waa nin caan ah oo heesaha banaadirida ku haysi jiray intii aadan dhalan ayuu ruwaayada alufi jiray maanta waa nin shiiqa oo masaajidada safka hore uga jira umulkhayr iyaduna sidoo kaleeto waa gabar aad u haysta ood arki jirtay waad maqli jirtay maantay waxay ku dhegan tahay kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nabi maxamed adigana allah subxaanahu watacaala waxaan kaaga rajaynaynaa inuu ku aqbalo ducada sharafta badan sheikhuna alfaadil saaxib alfadila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa sayruuq sheekh ma ku jirtaa ها ولا لو أنكو جرا mana dhegaysanaysa bilowgii barnaamijka
si fiican marnaba ma dhigin. su-aasha ugu horreysa aan jecelahay inaan ku weydiiyaa waxa ay tahay dadaal fara badan ayaad samaysay maxaad dareemaysaa dareenkaagu waa sidee horta marka hore alxamdulilah waxa waaye aad baan u faraxsanahay runtii tufaax waa qof igu qaali ah oo aan jeclahay saaxiibad qaali ah iyadoo fanka ku jirtaan anigu saaxiib la ahaa waxaan saaxiib kula ahaana ammaanta ay saygeeda ammaanto runtii waan jeclaa saygayga inaan ammaano erayada marka ayaan jeclaan jiray erayga fiican inaan weydiiyo ay odageeda ku ammaanto ama heesaha ay odageeda u qaado si qaas ah aniga oo ah runtii gabar barato diinta islaamka si fiican horeyna u soo bartay haddana ku dhex jiro oo barto baan haddana jeclaan jiray erayada goonida ah ee ay ku ammaanayso xaajigeeda oo ay ku raali gelinayso oo runtii markaad dhegaysatid adigu dareen gaara ku siinayo haddana waxaan ahaa gabar iyadu jecel saaxiibtinimadeeda tufaax fanaanimo kuma xiiseyneynin laakiin waa gabar aan dabeecad ahaan oo helay aan jeclaa inaan mar walbaba isla hadalno isdhegaysano wixii kusoo gudboonaadana ay ii sheegto oon talooyin fiican ka siiyo runtii markay ii sheegtayna waxaan yidhi tufaaxa ilaahay wuu ku jecel yahay allaha raxmaanka ah wuxuu kula rabaa waxa wanaagsanna raadi inaad qur-aanka shidatid muxaadarooyinka ila tali oo kale intaan maxaan ku dhahdaay u diro baan dhahaa dhegayso muxaadaradaas waa qiyaamay ka hadlaysaa dhegayso muxaadarooyinka oo dhan waan u diri jiray iyadana way dhegaysan jirtay maasha allah qalbigeedana waa qalbi aada u wanaagsan ilaahay wuxuu siiyey qalbi waasac ah oo fiican oo nadiif ah runtii aanan wax cuqdada ku jirin marka barashadeeni halkaasay ka bilaabatay waana maanta waxaan aada ugu faraxsanahay waa gartay ma sahlana inaad denmark iyo finland iyo canada oo aad hadda igala hadlayso ayaad kala joogtaan sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa iyo tufaax cali dubban tufaax darajo iyo adigoo sayruuq shiiqa oo dhal culimo ah sidee kugu suura gashay inaad shiiqa iyo tufaax isugu xirto maxay kugu qaadatay sheeqa muddo dhowr sano ah oo aan u malaynayo 2002 maxaan ku dhahdaay 11kii meelahaas mar bay ahayd baan ku darsaday facebookiisa muddo dhowr sano ah waxaan friends kala ahaa facebookiisa waxyaalo badan oo su-aalana waan weydiin jiray waxaa ii suurta gashay inaan message u qoray oo aan ku yidhi sheekh abdalxa waxaan rabaa gabar fanaanada oo saaxiibaday ah inaan kula soo xiriirsiiyo markaa iyada ah afkay ka sheegtay laakiin si toosa ogama ay soo wada bixin oo ma ay kasoo go-in muddaa kasoo wareegatay markan ay ka baxday hadda markaasaan la xiriiray sheekha si fududba isla markiiba igula soo xiriiray intaan markii hore isweynay kadib telefoonkiisu ii soo qoray waxaan ku idhi ma haddaan kugu xirayaa sheekho waxaan diyaar u ahay baan ku idhi labadiinaba inaan hadda isku keen xiro sheekha maasha allah waqti dambe u ahayd inuu seexduu rabay ha iga seexan baan ku idhi khayr allaha siiyo wuu i aqbalay tufaaxna waxaan ku idhi ha seexanin labadoodaba laba kaar baan soo kala qaatoon ku wacay labadoodiba saasaan isugu soo xiray anigu shaksiyan dadka tafaa'ulka fiican qaba baan ahay ummaddu way nooshahay ummaddu waa xayi nin walbana meel buu ceelka biyaha ka soo darsanayaa adigu meeshaad joogto uun haddaad u malayso inay tahay diintii oo dhan khaladka la galay ka mid tahay ummaddani waa la kala shaqaysanayaa tawfiiqdana allah ba iska leh subxaana wa tacaala waxaan ogahay gabdho ducaada oo in badan ilaahay uu gabdho ku soo hanuuniyey waxaan ogahay rag ducaada oo in fara badan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo hanuuniyey qaar baa saambuuska sameeya oo ilaahay ugu dhowaada subxaana wa tacaala qaar baa canjeerada sameeya oo ilaahay ugu dhowaada subxaana wa tacaala qof walba meel buu jannadiisa ka raadsadaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maxaa la yidhahdaa gabadhayda warsan iyo dowrka qiimaha badan ay walaasheedna ay ku caawisay ayadana ay ajirka weyn bangiga qiyaamo ugu shubay waana arrin ku dayasho mudan waxaana leeyahay haddii gabdhaha wadaadada ah darsi banaatul muxsanaad qolka la dhaho ayaan darsi ku leehay habeen walba oo arbaco ah markaasaa waxaan u sheegay habeen dhaweed kitaab ana u akrinayay waxaa iga soo galay cilmiga iyo qofka daaciga ah waxaan idhi maanta dhibka ugu weyn gabdhihii ducaadda ah waa kooxa baan idhi inta indhaha shareerka qabta waa saaxiibo inta kale aragti bay ku fiirinayaan
inta xijaabka caadiga ee qabtaan ina sheerarkayn inta kale khamaarka qabtay fiirinayaan inta khamaarka qabta waxay fiirinayaan kuwa madaxa qaawan ee goonnada qaba kuwa goonnada qaba waxay fiirinayaan kuwa madaxa qaawan ee sarwaalka qofkiiba waa la cayrinayaa war heedha hadduu qof walba dowrkiisa dadka aan u qosi lahayn oo la saaxiibi lahayn oo soo dhaweyn lahayn oo qofkan wuxuu macsi ku jirana qalbigaad ka nici afkana waad oga sheegi laakiin tacaamulkaaga quruxda badan iyo meesha uu aad iskaga imaan kartaan nuqtatul ijtimaac meeshaad ka kulmi kartaan sida hadda gabadha marka qof walba meesha nuqto labada qof ka kulmaan baa jira inuu qof walba intuu fahmo haddii aan qaabkaasi aan dacwada u fidin lahayn in badan baanu gaari lahayn aad buu dareenkaygu caawa uu runtii meel sare ayuu marayaa aad baana runtii aan ilaahay oga barya subxaana watacaala inuu gabdhaha warsan oo kale inoo badiyo iyo intaas aan ani hagaga ekaato caawa